waa tahay si rasmi ayaa noogu bilowday insha Allah barnaamijkeennii waxa aan marka hore doonayaa in aan screenkayga inala wadaago si aan si kooban ugu dulmaro Chevening Scholarship screenkayga si fiican baa wada aragtaan baan filayaa waxa weeye Chevening Scholarship waa scholarshipka ay dawladda UK bixiso oo sanad kasta arday ilaa 2 ku dhow عفوا qof kasta markuu soo galo waxaan ka codsanayaa inuu mute galo insha Allah si aynu isku maqalno scholarship-kan ayaa fursad siiyay arday ku dhow 2,000 sanad kasta oo laga kana keenay daafaha dunida fursadaas ayaa ay ku dhiganayaan 1 sano oo master ah mid ka mid ah jaamacadaha waddankan UK halka sano masterkaana waa taught oo lama ogola research wax 1 sano ka badan lama ogola PhD lama ogola undergraduate lama ogola specifically waxa weeye 1 sano oo master ah oo taught ah oo koorsooyin uu qaadanayo kadibna qofku sanadkaas waxa uu fursad u helayaa sidoo kale inuu ka mid noqdo network konton kor u dhaafaya oo Chevening alumni ah markuu qalin jabiyo waxa uu xaq u leeyahay jebgelis iyo kaas oo ku dabiray noloshiisa maalinlaha ah iyo deegaankiisa jaamacaddana scholarship ayaa bixinaya marka fursadaas dabcan introduction-ka waa akhriseen waxaan filayaa dhammaantiin inaad stage-ka ka soo gudubteen ama aad muuqaaladayda daawateen ama aad website-ka ka akhriseen qofkii uu ku cusub yahay baan damcay inaan intaa ka dabageeyo haddii aad xogo dheeriya uga baahan tahayna website-ka chevening.org baa booqanaysaa xaggana waxaa ka helaysaa xog runtii faahfaahsan oo application timeline guidance koorsada aad doonaysa inaad dooratid wixii dhan baa xaggan ka helaysaa marka qof kasta goortu apply yiraahdo oo kale waddankaaga toos isagana u helaysaa waxa eegaysaa xogaha marka waddankaaga looga baahan yahay oo runtii waxba kuma kala duwanaa Soomaaliya haddaa eegtid awardkana scholarship tiraadid waxa ku soo baxaya page-ka waddankaagii xaggana details dheeri lagu wadaagaya required documents-ki iyo waxyaabo lagaaga baahnaa waxaan filayaa in intiina badan soo akhriseen xogahan marka akoon ka samaysatid Chevening waxa aad fursad u helaysaa inaad meeshaan kala timaadid waxa aanu joognaa smart symbol website-kan la yiraahdo oo ah kii aad documentiyada ku gurisay kii aad application-ka ku sameynaysay xogtaada ku gudbinaysay ama academic background ha ahaado ama work experience ha ahaade madasha waa madashii aad wax kasta u gudbinaysay hadhowna la qiimeynayay inaad u qalantid scholarship-kan iyo in kale marka application baan anigu bilaabay kana waa sample aan ugu talagalay inaan dhalinyarada tuso awal baan fiidiyo hore ka sameeyay haddana haddii aan si quickly u dulmarno page-kan waxaad goortii aad akoon ka furatid ayaa waxaad samayn karaysaa inaad hore u sii geshid sida halkan idinka muuqateen application deadline-kiisu waa 1 November 1 November waa talaadada marka waxaan kula talinayaa qof kasta in uu deadline-ka u warhayo su'aal baa marka meeshan ka soo baxaysa deadline-kaas 1 November maxaa xirmay laana waxa ognahay waxyaabaha qaybtood in laga sugayo taasna waan ka jawaabi doonaa goorta website-ka rasmiga oo main page-ka aad timaadid 5tan page baa critical oo ay tahay inaad buuxisid ama u warhaysid midka koowaad waa background-ka waa qofka xogtiisii address-kiisii education meeshan kaliya waxaa la rabaa in aad xogta jaamacadda gelisid oo haddaad add education hadda dhaho waxaan gelin karayaa meeshan jaamacaddii aan haddii ilaahay ku ogol yahay soo dhigtay undergraduate-ka haddii aan master macaa soo dhigtay xaggaasaad buuxinaysaa education-ka marka xaggan waad gelinaysaa oo undergraduate-kaaga hadduu master jiro maca waa caadi anugu master hore aan soo sameeyay baa jiray masterka UK aan ku sameynay waa kii labaad marka problem ma laha haddii aad haysatid waad gelin kartaa master kale kaliya waxaa loo baahan yahay in aad sharaxdid sababta aad master labaad u sameynay sidoo kale haddii aad waxbarashada ka soo gudubtid waxa u imanaysaa work experience saan hore u sharxay waxaa laga rabaa minimum 2800 2,800 saacadood marka shaqooyinkaaga marka goortaad add work experience tirahdid
waxaa gelinaysaa shaqada magaceedii date-ka aad bilowday iyo date-ka aad dhamaysay iyo inta saac ee aad shaqaysay ma garatay marka totalka isaga hadhow calculate garaynaya oo weekii oo kale 40 saac baa la shaqeeyaa haddii full time tahay oo kale part time haday tahay 25 saac oo kale kadib isaga calculate garaynaya aniga si halkan ka muuqata waxaa aragtaa voluntary iyo full job aan sambala weeye dabcan inay waqtigii gaareen sidaas baad stage koowaad kaga gudbaysaa oo waxbarashadaadii xogtaadii shakhsiga ahayd iyo work experience-gii essay-gii baa u imaanaynaa essay-gu waa runtii qayb aad iyo aad critical u ah oo aad muhiim u ah laana waa meesha dadka lagu kala saaro meeshan essay-ga waxaa la weydiinayaa 4 su'aalood 4 su'aaloodba waxaa la rabaa inaad mid kasta 500 erey ka qortid midka koowaad waa leadership and influence waxaa lagu weydiiyey influencega iyo leadershipka هاي معه كمبيوتر بتاع أنا ما إلي بدنا أوتوميتد أوتوماتيك ولا أذن ولا والله أنا شرح ولا صوته عفوا dadka Soomaalida waa technology waa isku dhibanahay marka su'aasha koowaad saasaad waxaad ka warbixinaysaa adiga ka shakhsi ahaan rol hogaamineed ma soo martay haddii aad soo martayna waxa weeye tusaale ka bixi inaad marka 500 erey kusoo koobtid adiga oo practically bixiyey haddii ilaahay ku ogol yahay adigoo raalli ahaada waa dadkaas inaan muud wada saaray igu kalifaya saadantu inaad tusaale ka bixisid tusaalayaal baa la rabaa inaad bixisid inaad sharaxdid shaqooyinka aad soo qabatay oo kale iyo sida aad u hustay ama u soo bandhigtay hoggaannimo wanaagsan su'aasha labaad waa networking iyo relationship building meeshan waxaa la rabaa inaad la ogaado sida aad dadka u baratid xiriir ula samaysid xiriirkaasna aad u joogtaysid oo haddaa halkan kala timaadid community network weyn baa ku biiraysaa communitygaas haddii aad ku birto waxaa la rabaa qofkan qof active oo bulshooyinka la xiriiri karayo ummadihii kala duwanaa la xiriiri karayo inuu yahay kadibna xiriiradaas ka faa'iidaysan karayo wax ka dhalin karaya waxaa loo baahan yahay marka inaad soo bandhigtid networking skillskaaga haddii aad jaamacadda markaa dhiganaysay inaad dad la kulantay dadkii aad la kulantay inaad wax wada bilowdeen inaad hadda wada xiriir leedihiin inaad hay'ada ama dowlad ama meel kale hadda kasoo shaqaysay sida uga faa'iidaysatay networking skillskaaga tan kale saddexaad waxaa laga weydiinayaa study in the UK study in the UK waxaa la rabaa in la ogaado maxaad u dooratay saddexda jaamacadood maxaa u dooratay UK scholarshipyo badan baa jira maxay tahay sababta aad scholarshipkan Chevening u soo codsatay kan marka waxaa la rabaa adiguna inaad sharaxdid waa dabcan erayadaada markasta isticmaalaysaa inaad sharaxdid sababta aad saddexdaas jaamacadood ku dooratay iyo waddanka UK guud ahaan marka meeshaan fursad baa waxa u haysataa aad ku sharixi karaysid kulliyadaada oo ku sharixi karaysid tacliinta sare iyo UK iyo heerka aad dunida ka joogto waxay haysataa fursad aad ku tusi karaysid waxa aad Chevening kaga doorbiday adoo awood u leh ama fursad heli kara inaad scholarship kala xariisatid kan u dambeeyana waa career plan waxaa la rabaa career plan-kuna sida su'aasha ka muuqata waxaa la weydiinayaa short term iyo long term maxay yihiin qorshahaagu waxaa la rabaa in la ogaado meesha qofka haddii ilaahay ku ogol yahay haddii uu fursadan la siiyo ma yahay qof qorshayaal leh qorshayaashaas dalkiisa iyo dadkiisa ma u faa'iideynayaan UK laftirkeeda iyo xiriirka waddankiisa iyo UK ka dhexeeya ma bilayaan oo wax ma kusoo kordhinayaan marka career plan-kuna waa mustaqbalka markaa eegaysid marka afarta qodob baa waxaa moodaa inay kala madax bannaan yihiin laakiin dhammaantood way isku xiran yihiin waxa ay ka hadlayaan cafwan waxa ay ka hadlayaan shakhsiyadaada adigay ka hadlayaan tacliintaadii hore khibradaadii shaqo iyo hamiga iyo qorshayaasha kaa guuxaya marka saas baa la isugu xirayaa asayada waqti geliya isticmaal grammarly haddii ilaahay ku ogol yahay isku day inaad heshid qof proofreading kuu sameeya qasab maaha inuu Chevening scholar noqdo qof Chevening helena noqdo qasab maaha waxaa ku eegi kara qof English kaa badiya
ama saaxiiba ama familiya marka isku day inaad insha Allah intii aad awoodid aad u hagar baxdid kole waqti yar baa haray laakiin essaygu waa meelaha runtii ay hadhow committeega dadka kala saaraya ay aadka u eegaan waxa weeye waxa la rabaa sheekadaadu inay convincing tahay oo soo jiidanaysa qofka committeega akhrinaya uu ku xusuusto kumanaanka essays ay dadku soo qoreen unique waa inay noqoto in adiga kugu saabsanaato inuu qorshe ka muuqdo iyo isku xir wixii aad soo baratay ama kasoo shaqaysay qodobka saddexaad baa soo gudbaynaa waqtiga oo cararaya awgeed waxaan rabaa inaad fursad u heshaan idinku inaa su'aala na weydiisaan aniga xasan haddii ilaha idmo qaybtan university application detailska marka ay timaado runtii meeshaan waxaa la rabaa keliya 3 jaamacadood magacyadooda inaad gudbiso 3 jaamacadood aad UK ka dhigan doontid keliya magacyadooda ayaa gudbinaysa iyo kuliyadaha lama rabo in aad hadda qasab ma ah inaad transcriptiga iyo diblomadaada hadda keentid kuwaas aan arki doono iyaga waqti dambe lagu ridi karaa laakiin hadda inta November ka horeysa essayska background informationka iyo haddii la ku ogolyahay magacyada 3 jaamacadood waa daruuri su'aalahan kale waa iska su'aalo general ah oo yes iyo no ah si simple uga jawaabi karaysa waxa kaas dheer oo la socda referenceska oo iyagana qaybtan dambe ku jira u dambaysa referenceska iyagana waa laga sugayaa ilaa February laakiin waxa loo baahan yahay in aad haddii ku ogolyahay magacyadoodii sii gudbisid oo aad dadka referenceska ku noqonaya aad magacyadooda gudbisid 3 qof marka hadda referenceska iyo jaamacadaha magacyadooda ayaa soo gudbinaysaa kadib marka la gaaro February inta aan February la gaarin deadline-ku dabcan xaggan ku qoran yahay textigan akhrisataan baad waxaad samaynaysaa referenceskiina iyagoo qoraal baad ku upload garaynaysaa systemka waa kuwana 20 February 2023 waa documentiyadii jaamacadda iyo referenceski oo xaggan hoose iyagana 21 ah kuwan waa conditional and unconditional offers waqti badan baan geliyay runtii inaan labadan sharaxo waa aqbalaadii jaamacadda marka hadda jaamacad 3 jaamacadood magacyadooda gudbisay ama 1 November ba aad gudbisay waxa la rabaa inaad isla dhaqsaba bilowdid inaad jaamacadaha xareysid oo aad jaamacadaha la xiriirtid aqbalaad ka heshid aqbalaadaas waxay noqon kartaa conditional mid ay ku yiraahdeen aqbalaad waan ku siinay laakiin waxa ka dhiman ama reference ba ka dhiman ama language ba ka dhiman testing and certificate marka isagana goorta jaamacadda la xiriirtid ama aad shuruudii wixii ka dhiman aad buuxisid waxay kaaga dhigayaan unconditional offer kaas way marka midka ugu dambeeyo qof goorta scholarship ka helo loo baahan yahay inuu haysto arday waxa jira scholarship interview ku soo gudbay scholarship ka helay laakiin awood u heli waayay ama fursad u waayay inay aqbalaad unconditional ka helaan jaamacadda marka waxa meeshan taladu aan ku biirin lahaa aan ku adkeyn lahaa inay jaamacadaha serious u qaataan la xiriiraan isku dayaan in aan waqtigaas iyadoo la gaarin ay ka helaan aqbalaad marka guntii gabagabadii waxaan doonayaa wixii aan misgareeyay ama aan ilaawayna inuu Dr. Xasan carabka ku dhufto laakiin goorta korka ka soo eegtid waxaad arkaysaa in runtii processku uu si clear ay u qoreen designku uu cad yahay haddii aad xogo dheeri u baahan tahay website-kii waa ku laaban kartaa waxaad helaysaa YouTube badan YouTube lay badan oo kayga ku jiro dhalinyaro kale badan oo iyagana si fiican u sharaxay oo English ku hadlay ama afaf kale ku hadlay Carabi ha ahaadaan maanta ma jiraan runtii xog la'aan ee waxa muddo marka qaybtood dadku inaysan rabin in research badan ay sameeyaan waxaan hadda marka asuumayaa oo aan ku soo dhaweynayaa walaalkay Xasan Dr. Xasan waa ardadii aan isku waqtiga helnay scholarship-kan Chevening dabcan mar dhaweyto magaciisa waan arkay waxaan filayaa inuu weli nala joogo haddii uusan joogina waxaan waa jooga Yusuf assalaamu calaykum wa calaykum assalaam Doctore soo dhawow waxa waaye wixii aad adiguna comment ku dari karaysid ku soo dhawow microphone waa mahadsan tahay waa la si fiican baa la maqlayaa baan filayaa xogaa 10 daqiiqo igu qaadatay inaan aad si fiican baa ku maqlaa ustaad xogaa waa la raftaan okay wax badan kuma dareen 2 bari baa ka haray essayga iyo in la iska dhameystiro oo la gudbiyo
marka anu talahaan waxaan soo jeedin lahaa labada beri haray in xoogaa waqti fiican la geliyo oo ideooyinka laga dhigo qaabay isla socdaan oo qofka akhrinayana qancinaysa xoogaa luqadda lagu qorayo Englishka dabcan luqadeeni koowaad ma ahan marka inaan xoogaa iyadana waqti gelino oo aan isticmaalno software-rada iyo wixii kale la awoodo iyo proofreading saa sheegtay intaasaan anigu hadda ku dari lahaa wixii kale su'aalaha dee waan u fadhiyaa meesha oo waqtiga inta badan su'aalaha iyo jawaabaheenu gelinayna insha Allah aad baa u mahadsan tahay xasan waxaan runtii laftarkeyga doonayaa in waqtiga inta badan 40 daqiiqo oo dhiman 40 daqiiqo inaan dhalinyarada siino wixii ay su'aalo qabaan in ay qofkii su'aal qabaa uu gacanta soo taagto waxa aan arkaa Cabdi Aadan baan arkaa M12 Aadan muudka ka bax su'aashaada soo daa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلا مغلان فلا يا يوسف وعليكم السلام سيفي عم بكون مخلق مرات ما فتين the way you share the knowledge so متقنا so فانتين سيدا متقنا ودي رجل ليسان نفسه إله سبحانه وتعالى ميزان سنة يعني سعره أنت مثلا كنت سجود أو سلام يا ذاك جروب كتير يدين كم متقنا متكأ أنا قد دور شير جافين وإسكود ديي وأنا كفيل جروبي even لكن كستانا دوكمنتي أنا سميت جرين لكن waxa xoogaa mataqaana caajis geliyay shahaadooyinkan oo TOEFL-ka iyo IELTS-ka oo shahaadooyinkaas marka shahaadooyinkaas qofka haduusan haysan inuu iska dhaafo miyaa mise qasab waaye in labada shahaado qofka mid ka mid haysto mise English proof mataqaana baa loo baahan yahay qofka inuu markuu salaan luqadda qofka markii lagu xujeeyo shahaado luqad wuxuu sameeyaa qof والله si fiican baan ku fahmay muudgal qofka muudka ka soo baxay su'aashaada haddii aan ka jawaabo aad baan u mahadsan tahay luqaddu waa mushkilo jirta maadaama Englishku uusan ahayn afkeena koowaad waxa weeye markas ardaydu dhib bay ka maraan laakiin luqadda runtii qofkii waqti geliya ama si fiican u akhriya baaritaan badan sameeya waa case laga soo gudbi karayo qaabka looga soo gudbi karayana waxa ay tahay inaad taqaanid horta jaamacadaha aad gudbisay ama intaadan gudbinba aad og tahay jaamacadaha kuliyadaada haya iyo requirements-kooda marka goortii aan anigu soo xareynayo kale kuliyadeyda waan ogaa kuliyadeyda markaan baaray ilaa 10 jaamacadood baan arkay bixiya jaamacadihii waxaan wada eegay requirements-koodii IELTS anigu waan haystay laakiin waxaan eegayay grade-ka ay ka rabaan baa maca kala duwanaa ma garatay marka inaan anigu helo kuwo igu aqbalay waxaan anigu wato marka haddii qofku maca English haysan waxaa la helayaa test IELTS waxaa la helayaa waxaa la helayaa dad ama jaamacado waxaa la helayaa Duolingo imtixaan la yiraahdo dadkan yaa naga saaranaya waa tahay waxaa la helayaa marka jaamacado aqbalaya shahaadooyin aan IELTS iyo TOEFL ahayn waxaa UK hadda baaritaan badan samaysid ku helaysaa jaamacado aqbalaya qofku haddii uu ku soo bartay English ku weydiinaya kaliya inaad jaamacadaadi ka keentid document tusinaya qofkani wuxuu ka soo baxay jaamacad language of instruction luqadda wax lagu bartaa ay tahay English maadaama jaamacadaha waddankeena UK oo kale aad looga aqoonsanayn waa laga yaabaa mararka qaybtood ina Englishka Soomaaliya kala la aqbalin laakiin runtii waxaan kuu sheegayaa waddankan ilaa 200 oo jaamacadood ka badan baa ku yaala baaritaan hadda si dhab u samaysid waxa soo heli kartaa jaamacad qaadata shahaadadaada Soomaaliya kaga timi qaadata English haddii aad Duolingo haysatid haddii aad maca tiraahdeed war waqti siiya laana ugu dambeyn waxa laga rabaa jaamacad in aqbalaad ka haysatid ilaa July يعني مرمرسية ما جرى هدي أذن مع إنجليش حتى حيسن إنتاس واحد استعمالي كرتا صدح أفر بلود إنها هدي اللقطة وفوسي ساعات كبعسد بيش الشناد ميلها سوكال عادي تحانكي قشيد
kadibna aad jaamacadii tiraahdo okay waxa igu xirteen inaan English la imaado English kaasaan wataa grade kaasaan wataa waxa weeye waxaan filayaa haddii aad exchange badan oo email samaysaan in ay aqbalayaan oo requirementskooda qaybtood laana jaamacadaha qaybtood waa business scholarship-kan dowladda lacag siinaysa marka ardayga way la shaqeeyaan qaybtood laakiin waa inaad adiguna dadaal muujisid oo aad communication fiican samaysid marka su'aasha waa ku dheeraaday waa ku raftay haddii ustaad xasan uu wax ku daray editorku waan soo dhaweynaa haddii kalena waxaan usii gudbaynaa su'aasha labaad maya waxba kuma daran si fiican baad uga jawaabtay su'aasha ku xigtaan u gudubno dhimada waa tahay doctor mahdi halo wala si fiican wala maqlaan maana si fiican aad u mahadsantiin labadiinaba sida wanaagsan barnaamijka noogu soo gudbiseen waa idinka fahmay qaar kalena hore waa u soo akhriyay marka waxaan rabay laba su'aalood oo kooban mid waxaa weydiinayaa doctorka meesha laga jaartin horaa loo aqbalay doctor waxaan ku weydiin rabay barnaamijka legability-giisa markaa fiirinayay adiga master program oo hal sano saas inaan ku arkaya jeclahay marka haddii medicine fieldigaas la dhaho mastarada qaarkood waa hal sano waa ka badanayaan 2 sano 3 sano 4 sano gaari karaan marka dadkaas ma soo galayaan taas oo fahmay ta koowaad haddii ay saxan tahay tan labaad waxaa waaye keeskan kale oo hadda dhacday jaamacadda qofkii inuu la xiriiro isaga iyo waxaa fahmi lahay barnaamijkan oo scholarship-ka yani isku xiran yihiin mise labadaba adaa mid kasta goonida u raadsanayo for example barnaamijka hadduu ku aqbalo jaamacadiga gooni ula xiriirayo adiga yaa kasoo dhamaysanayo kadib aa u keenaysa inay kusoo aqbaleen caddeena mise barnaamijka hadday ku aqbalaan jaamacadda ayaa kugu xiraya jaamacadda keliya selection aa samaynaysaa taasna xoogaa inaa rafay sidaa u baahnaa wadaasintien waa mahadsantahay walaal su'aasha koowaad haddaan isku dayo inaan ka jawaabo oo ah medicineka koorsooyinkiisa qaar hal sano ka badan bay rabaan programkuna hal sano weeye marka qofka medicine raba inuu sii barto ma ka harayaa horta guud ahaan jeffininku hal area kuma koobna muhiimadiisu waa jaamacadaha ku yaala dalka ingiriiska inaad admission ka haysatid jaamacadaasina inay jeffininka la shaqayso kooraskuna inuu yahay 12 bilood ugu badnaan lower limit baa jiraan u malaynayaa laakiin adigu ugu badnaantaas waa inuu yahay 12 bilood marka sax su'aasha anigu waa isweydiin jiray waagaan soo apply gareynay horta waxaan hadda bartay waa public health-iga iyo health management-iga iyo waxyaabahaas weeye oo hadda clinical toosa ma aanan samayn laakiin waa raadin kartaa koorsooyin clinical ah oo 12 bilood in jaamacadaha qaarkood laga helo waan filayaa website-dooda waxooda inaad geshid raadisid muhiimaddu waa inay 12 bilood ku dhammaanayso marka haddii aad heshid jaamacadaasina jeffinan la shaqaynayso u malayn mayo wax gaara oo kaa hortaagan inuu jiro haddii aad se weydo oo inta badan clinicalku ay 2 sano 3 sano iyo noqdaan jeffininku dee shuruudii koowaad baa waxayba tahay inay kooraskaasi 12 bilood maximum u yahay taasaasaan uga bixi lahaa haddaan wax ilaawena Yusuf waa ku daraya ta labaad oo su'aasha labaad waxay noqotaan u malaynayaa jaamacadaha helidooda iyo scholarshipka helidiisu ma separate ba mase waa wax hal mar isla socda saas u dhigan tahay sooma very good jeffininka applicationkiisu waa 2 beri kadib waxa aad gudbinaysid oo documentiga ugu horeeya ah oo essays-ka waana gaar isagu jaamacaduhuna waa gaar oo jaamacaduhu de jeffinin kaliya ma qaataan cid walba ay qaataan application process-koodu waa gaar qofkii lacag iska bixinaya qofkii scholarship-a cid walba gaar bay u apply garaysaa admission-ka soo helaysaa admission-ka markaa soo heshid iyo waxa kulansiinaysaa jeffininkii dhaqaalihii kuu diyaariyey macnaha haddii awardka ku guuleysatid oo essayadaadu fiican yihiin oo interviewgaagu fiican yahay oo aad documentigaaga waxa dhan bisha 7aad waxa isla gaaraysaa marka adigoo jaamacadiina ka haysta ogolaansho inaad kooraskooda gashid jeffininkuna ay ku siiyeen awardkii final awardkii halkaasaad marka saaksanaysaa laakiin labada procedure wax iska galay ma jirto mid walba adaa gaarkaa u bilaabaya marka hadda kan jeffininka markaad dirtid labadaa beri haddaadan jaamacadaha already bilaabin markaa kan dirtid aad bilaabaysaa tartiibtaada u wadaysaa waxaad hubinaysaa uun
chefininku markuu kuu soo baxo bisha 6 ama bisha 7 inaad admission final admission oo uncondition ku xirnayn jaamacadaha ka haysatid Yusuf oo ku dar wixii aan ilaaway aad baa u mahadsantahay xasan oo may sidaa u soo koobtay weeye way kala madax bannaan yihiin jaamacadaha iyo scholarshipku runtiina waqti ku filan waa la siiyey ardayga oo uu labadaba mid kasta gaarkiisa uu raaco oo waqtigu aad ciriir uma aha sidaan haddaynu soo tusay February ama waxaan leeyahay November 1deeda waxa uun xirmaya waxyaabaha qaybtooda laakiin chefininku dhankiisu kasii soconaya adigii jaamacadunu gaar baa kasii wada xiriiraysaan marka waqti kugu filan waa haystaan ee kaliya waxay u baahan tahay joogteyn in la dabagalo baaritaan la sameeyo tan kalena waa dabcan website-ka chefining bay ku xiran tahay bay ku xusan tahay oo waxa qasab ah in uu ardaygu xareynayo barnaamij hal sana mastera oo tood ah kaasoo 12 bil iyo wax u dhow kusoo gabagaboobaya su'aalahan kusii wadaynaa maxamed cabdinuur soo dhow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. دمان لبدو أستاذ دكتور حسن يوسف أدو أيدين سلامي وحنا رجيني يا دمان كلنا يراد كلنا إني مغلسو المركب وحنا نتبي دور سؤالات ويرير إنان وقادو وقبل جري سنة كان وكل قبل جري لكن واحد ربينا وقادو references كدتك أكاديجينيس waxa wanaagsan inaad dadka professionalka anigu hadda hay'addan ka shaqeeya ninka line managerka oo kale emailkiisa iyo regional managerka labada nin baa professionka iga geliyay marka in ayaga direct contact in la sameeyaan chefining hadhow soo weydiiyaan aniga wax ugu saabsan iyo inaan anigu ka soo qorto keeba wanaagsan su'aashayda koowaad education references kana iyagana bal in macallimiintii iyo jaamacadihii dalka oo meesha haddaan jaamacadda ka soo dhameeyay oo kale baajkayga digriga koowaad ka soo diyaariyay chance u helimaayo in ay soo diyaariyaan taana seebaan u samayn karaa mid saddexaad baan qabay oo aan rajeynaya inaad aad idinkuna kulley aqoon badan u leedihiin ma jirtaa age oo eligibility age qofkaas for example 40 am 36 37 marka uu gaaro ay noqonayso uneligible marka saddex su'aalood baan caawin karo insha Allah inaad iga caawisan waan mahadsantiin aad baan idinku mahadcelinayna assalaamu calaykum وعليكم السلام watahay su'aasha koowaad waxaan filayaa inay la xiriirto referenceska page dhan bay kaga hadleen oo way ku qeexeen inuu noqdo qof si professionally ama academic ahaan ku yaqaano uusan family noqon saaxiib ka noqon laakiin uu yahay qof ama aad shaqayna dhex martay oo comment ka bixin karaya abilities-kaaga qofkan xirfadiisa hawlkarnimadiisa ama uu yahay qof academic ahaan ku soo gacan qabtay oo ka bixin karaya xog qofkan analytic ma yahay academic ma yahay qof kasoo bixi karaya hawlaha dhow jaamacadda loo dirayo marka kaliya waxay rabaan inay yani perspective ka helaan dad si kula soo shaqeeyay marka anigu laba waxaan isticmaalay references midna waxaan ka keenay supervisorkayga jaamacadda midna waxaan ka keenay qof aan wada shaqeynay oo hay'ad ka wada shaqeynay magacyadoodan gudbiyey kadib baa mid kasta gaar ula xiriiray intii aan la gaarin bishii labaad waxaanan u sheegay waxa jira maca website-ka chefining haddaad booqatid meel ay ku qeexayaan ama ay ku sharaxayaan waxa laga rabo qofka referenceska kaa bixinaya inuu haddii ilaahay ku ogol yahay carabka ku dhufto hadda haddii aan si quickly aan screenka idin tuso referenceska halkaan saa ka aragtaan waka page-ka dhan baa sharaxaya yaa noqon kara su'aalaha badanaa ka yimaada inuu qofku bedeli karo luqadda lagu qorayo wixii dhan xaggaan ay ku sharaxan yihiin marka waa inuu koforgareeyo waxyaabahan soo socda 1 2 3 4 shanta qodob oo kale waa inuu koforgareeyo qofka reference ku qoraya labada warqadood baa ka soo qoraysaa labada warqadood goorta qof dadkaas ku soo qoraan baa waxaad samaynaysaa PDF baa ka dhigaysaa kadibna website-kana ku shubaysaa waa inaga halkan ku aragnay referee names xaggaana ad referee dhahaysaa meeshan magacyada goorta ku gurtid
baa hadhowna waxa weeye letterska waa kuwaana xaggana ku upload garaynaysaa marka waa straight forward kaliya waxaa loo baahan yahay 2 qof oo comment ka bixin karaya xirfadaada shaqo iyo academic xasan ها سؤال مهم يا حيد سيدا يوسف ودغاي un baan anigu u dhigayaa muhiimadda chefininku sayadaasu ka bilowda marka warkaagu inuu isdaba joogo baa fiican sayada dabcan waxyaabaha qortay dee shaqa qortay inaad leadership tahay shaqaada wax ka bedeshay community wax ka bedeshay marka waa waxa ugu fiican inaad qof professional ka dhigatay referencegaaga qofka professionalka ee ugu sarreeya heli kartid oo ku yaqaan maaha qofan ku aqoon oo institution kala jooga so institutionka aad ka shaqaysid qofka ugu sarreeya oo weliba adi shaqadaadana og inaad reference ka dhigatid taas waa very important su'aal kale xoogaa ku hoos jirto educational references baad sheegtay jaamacadaha referencega iyagu rabaan inta badan ka chefininka kama foga laakiin jaamacaduhu maadaama iyagu waxbarasho ka fikirayaan qofkani academically course ma ka bixi karaa inay maqlaan way jecel yihiin marka dadkuna isku mid ma dad baa dee educationka goor hore ugu dameysay oo hadeer senior oo muddo shaqaynaya laga yaabaa hadeer macallimiintoodii dadkoodii aan contact la lahayn marka khasab ma mar walba inaad macalinkaagii ka keentid shaqada laftirkeeda dee qof hard working inaad tahay oo maxaa la dhahayay on command ah oo talinaya oo wax walba ah iyada laftirkeeda waa ka keeni kartaa marka muhiimaddu waxaan kusoo koobayaa waxa ugu fiican aad heli kartid qofka ugu fiican aad heli kartid ugu positionka fiican midda kale qof aad heli kartid oo hadhow haddii wax lasoo weydiiyo aad access u leedahay inaad la hadashid laftirkeeda waa inuu qofku yahay qof aad kaaga sarreeyo hadhow tiro emailada kasoo jawaabin haddaa meesha ku qoratid iyaduna problem bay kuu keenaysaa qof dee kula shaqeeyo taqaanid oo maxaa la dhahaaye ay access u leedahay professional ah family lama ogola saaxiib lama ogola waayo qofkan shaqadaadu wax ka sheegaya marka anu halahaasaan oran lahaa intaasaan taa ku orada age limitka haddaan isku dayo waxaan u malaynaya age limit ma jiro chefininka haddii aanan khaldanayn age limit ani ma ogi da' yaroo hoose way jirtaa waxaan u malaynaya qofku de waa master degree marka qof master degree diyaarinaya da'ihiisa waa la iska garan karaa tusaalaada qof 18 jir ama 17 jir master baan diyaarinayaa cidi ma ka yeelaysaan u malaynayaa laakiin upper limit ma jiro yusuf haddaan wax ilaaway 3 su'aalood baa hayan baan u malaynayaa aad iyo aad may waa intaas age limitna ma arag kolay waa eventigii ardada la isugu keenayna dad badan waxaan ku arkay senior oo ilaa 40 iyo gaaraya da'doodu tahay marka waxaan filayaa in caqabad ahayn website-koodana kuma xusin anigu ilaa gees waan akhriyay gabdhahan fursad siinayna hadda waxa weeye khadra maxamed soo dhawow walaal su'aasha aad u mahadsantahay walaal Yusuf waad maqlaysaan baan filayaa su'aalahaygu iska kooban yihiin mid waxa weeye faanka tuition feegu markaan akhriyay waxa weeye 22 euro lacagta UK markaan jaamacadihii aan akhriyay anigu aan markaas danaynayo inaan wax ka baranayo intaa way ka badan tahay marka sidee bay isu hadhowtii looga bixi karaa arrinkan miyaga wixii dheeraadka bixinaya mise qofka la dhahayaa ha ku darsado intaastaan su-aasheedu intaas bay ku kooban tahay si wanaagsan haddii aan khaldanayn anigu limitka meeshaan ku arkay kaliya waxay ahayd kulliyadda businesska oo kulliyadda businesska waxaa la dhahayay wixii 22,000 ka badan waxa weeye lama fangarayn doono marka kulliyadaha kale ma arag limit noocaasa oo badanaa scholarship qayb kale wuxuu leeyahay partner ay dhahaan oo jaamacadduna ay ardayga qayb ka bixiso 25% oo kale ama 15% oo kale inta kalena ay chevening bixiyaan marka laga yimaado kulliyadda MBA-da
limit kala ma arag laakiin waa dhici kartaa xogaha iga hoos baxa inay jiraan ustaadku isaguna had wax ku darayo soo dhowo may adaaba taa iiga xog roon laakiin mar walba jaamacadu waddanku way ballaaran yihiin waxaan ku talin lahaa anigu 3 choicena waa haysataaye inaad choiceskaaga ka wada dhigin jaamacado lacagtooda aad u badan tahay ama balse jaaniskaaga uu fiicnaado hadhow doorasho inuu kala heshid intaas aanu ku dari lahaa aad baa u mahadsan Yusuf muted baa tahay عفوا ها عاد فتح حيدر بان الله هضليا ولا السؤال هذا سوداء السلام عليكم وعليكم السلام السؤال هذا ولا العد أستاذي سؤال يرى قوي وقصاب سن دنكاس ريفرنسيga waxyaabo frontier dan ka shaqeeyay oo sanadii ugu dambeeyay aan ka heli karo warqad cadeynayso inaan haysto muqaabalaan gareyn karaa teeda kale arrimaha documentiska gadaal dambe la diraayo oo transcript iyo shahaadada maadaama jaamacadaha hadda kadib aan dhammaan rabno shahaadooyinka banaanka yaalin xilli dambe ma diri karaa thank you Aftah barnaamijka bilowgiisii baan qodobadaas wada taabanay marka ay noqoto referenceska yes sidaan baarkan sharaxaynay waxa way qof wada shaqeysaan qof jaamacad hadii la ku ogolyahay macalinkaaga noqday academic professional qofka haduu ku garanayo family ahayn saaxiib ahayn waa caadi uu noqon karaa dokumentiyada markay timaado transcriptiga iyo diblomadana ilaa February baa laga sugayaa 21-deeda laakiin wixii date-ka ka dambeeya waxa ay noqonaysaa ku ogolaanay systemku inuu ku upload gareysid inaad dib kala kulmaysid oo egtaa maadaama website-ka ay ku xuseen in ay ugu dambeyn 21 February sanadka cusub marka inta ka horeysa hadda shahaadada heli karayso waa good hadii kale waxay noqonaysaa in aad sanadka soo socoto fursadaan eegto ustaadi arrimaha ku saabsan software risk oo lagu isticmaalayo grammarka waxyaabahaas iska hagaajinaya ma jiraan software oo la isticmaali karo linkigiisana message ahaan baan ku reebayaa goortii aad essay qortaan horeyna hadda cabaar ka hor baan waxaan soo dhigay hadii aad chat kor ugu laabataan essay sample keys qof kale essay uu qoray dabcan ha koobiyeynina waxaad samaysaa kaliya structure-ka eega qaabka uu qofkan waxa u qoray iyo suu doodiisa u soo bandhigay argumentiskiisa suu isugu xiray baad eegaysaa kadibna eraya adigu leedahay baad qoranaysaa marka laba documentiyo PDF document waa ka essay document kalena Dr. Xasan baa qoray oo waa guidelines waa hagay waa wax uu ka hagayaa sida aad essay tayo leh oo runtii hoos imanaya chevening waxa ay sugayaan u qori lahayd labada documentiba la daga software markay timaadana midka ugu macquulsan ee ugu caansan ee badana textiga ardayda ka caawiya waa Grammarly isagana haddan soo dhigaya text ahaan soo dhigaya Zoom chat ka xagaasaad ka eegi kartaan oo goortii aad qoraalkaaga dhameysid waa akoonta ka furitid copy paste baa dhaysa kadibna waxyaabaha grammarka iyo punctuation-ka ka khaldan uu ka saxayaa runtii sidoo kale haddii aad doonaysid in aad essay tayo qortid goortii aad wax qortid isku dayna qof ama laba asxaabta ama macallimiin ama qof English kaaga fadhiyo uu isha mariyo kaaga roon dabcan kaaga aqoon roon uu isha mariyo kadibna aad sidaa ku dirtid waxa weeye way fiican tahay inaad labaad ama comment ama view kale uu isha qof mariyo fartuun baan filayaa inuu qofka magaciisu yahay fartu ay ugu qoran tahay soo dhow walaal وادعوا ولا السلام عليكم وعليكم السلام ولا الوالد السلامي وحرب سؤالين إلى ويديو هرت السؤال كود حوالي أنا جيف منك يعني وأبلا جري أنت أنا جامعة أبلا جري منك وأنا درستي مركز السؤال اللي يديني وحوالي جيف منك هذه لعل أهلي وايو مرلوات ما أبلا جرين كرا سؤال كله يديني وحوالي work experience السكرة أرضي السنة كان بس جامعة ديان هاي ولي work experience ما نهيلين qaybtaasna sidee macnaha ku xalin karaa su'aasha kale oo u dambeysana waxa weeyaan jaamacad ayaa hadda abalaagreeyay
jifininka kadib way soo aqbashay marka haddii jaamacadda marka waxaa September 2023 weeyaan marka data science ka abalagrey so marka haddii lacala jifininka oo isoo aqbalo qaab noocee ayaa ugu xiraa hadduusan isoo aqbalinay fursadda labaad oo helo miyaa jaamacadda iska fargareynaa su-aasha u dambaysa runtii si fiican uma fahmin xasan ma maqashay su-aasha mise ku celi haddii ay ku celin kartay fartuunay ma ku celi dhiman su-aasha u dambaysa waxa weeyaan jaamacad ayaa abalagrey marka abalagrey October dhexdeeda way soo aqbashay waxay bilaabanaysaa September 2023 ayay bilaabanaysaa so marka jifininka marka weli awad kama haysto jifininka so marka haddii next session aad jifinina abalagrey oo jaamacadda miyaa ku xiranaa waa su-aal fiican waxaa kaloo tan ka horreysay su-aasha la xiriirta transcriptiska iyo documentiska saan sheegnay taas waa ilaa February baa lagaa sugi karayaa work experience markay timaado dabcan Soomaalideena work experience ama dadka oo dhan ardada international ka dhan work experience waxaan u fahnaa kaliya inuu qofku hay'adii dawladdu soo shaqeeyo full time meel ka shaqeeyo lacag badan qaadanayay laakiin haddii aad work experience akhriseen page-ka Jiffin scholarship waxaa noqon karaya voluntary part time internship marka haddii aad ahayd qof tabarucaad soo sameeyo voluntary soo sameeyo hay'adaha localka la soo shaqeeyay ama bariis ka qaybiyay ramadaankii ku darso waa khibrad waa voluntary internship haddaad samaysayo hal bil shirkad telecommunication oo kale aad shaaha ka qaybinaysay maca waxa weeye waxaa la rabaa kaliya qofkani ma ka baxay comfort zone-kiisa iyo iskuul kaliya fasalka oo dunida reality-ga ma u baxay oo khibrad ma yeeshay dad hierarchy kala sarsareeya ma la dhaqmay marka isku day inaad isku keentid ilaa 4 ilaa 5 6 meelood oo yaryar wax ka soo qabatay ama gudoomiye arday ha ahaato ama shaqo full time ama meel ka shaad ama internship ha ahaatee waxyaabahaas oo dhan waa isku keeni kartaa kadibna waxa isku day haddii ay ku gaarto dabcan limitkii oo 2800 oo saacadood good xagga ka sii ambaqaad oo waa lagu xisaabinayaa haddii aysan laakiin limitkii gaarin oo ay aad uga yar tahay I believe work experience waa mid ka mid ah shuruudaha asaaska ah caqabad bay noqon karaysaa su-aasha u dambaysa oo ah jaamacadaha iyo jaamacadaha already ardada aqbala waa fikir fiican oo waxa weeye hadda waxaaba haysataa already jaamacad inay ku aqbashay haddii aad interviewga usoo gudubto Chevening ku aqbalaan waxaad Chevening u diraysaa warqadaas aqbalaada ee jaamacaddu ay ku soo dirtay haddii aadan sanadkan Chevening ku guuleysan jaamacadda waa la xiriiri kartaa waxa jira waxay dhahaan deferral waxa oran kartaa sanadkan waxa weeye ma awoodo am scholarship-kii ma helin ma ECDB kartaan aqbalaadaas oo kale badanaa jaamacadaha qaybtooda way sameeyaan sanadkii hore arday saas ah baan arkay oo ajnabi ahaa oo aqbalaadu sanad hore mid ka haystay oo uu dib u dhigtay uu scholarship-kii markuu helay buu ku xiray marka jaamacadda iyo xiriirkiina dhex maray ku xiran tahay waase option bannaan oo la samayn karo laakiin waxaan kugula talin lahaa my personal opinion hal jaamacadood ha isku halayn jaamacado kala xare ilaana 3 jaamacadood baa magacyadooda gudbisay 2 jaamacadood oo kalena la xiriir isku day ugu yaraan inaad 2 ka haysatid aqbalaad haddii ilaahay idmusaa hadhow wax isugu bedbedelatid oo very comfortable ha noqon waxaan filayaa inay taas su-aashaada ka jawaabtay xasan haddii aad ku daraysid maya ustaad si fiican baa uga jawaabtay kaliya waxaan xoojin lahaa su-aasha koowaad oo ah jaanis kale ma haystaa Jeffninku ama sanadkan ableegare ama 10 sano isku xigta ableegare sanad walba qof cusub baa tahay marka qofkii hore helay baan dib u ableegarin karin sanadlayo absolutely qofkaasina de way u ableegaraya ma jirto laakiin haddaad 10 sano ku celcelinaysay iyo haddaad sanadkan cusub tahay mar walba waa ableegarin kartaa marka haddii this year wuxuu kugu suurtoobi waayaan experience-iga xoogaa meeshii la rabay aadan joogin dib male waad shaqayn kartaa waa howlaha kala qabsan kartaa next year hadduu ilaahay ku gaarsiiyo insha allah waad ku dayi kartaa volunteerka waa la aqbalaa suu Yusuf sheegay haddii aadan shaqo toosa qaban oo very junior tahay jaamacadda hadda dhammaysay
volunteer aad qabatay waxaaga isku toosiso laakiin mar walba maskaxda ku hay oo dee tartan baa gelaysaa marka xogaa tartanku inuu kugu adkaado waa suurtagal taasina wuxuu ilaahay kuu qoray waa qaadaysaa volunteerka waa la aqbalaa marka jaamacadahana saa Yuusuf sheegay weeye oo defer baad samayn kartaa haddii oo aad sanadkan weydo sanadka dambe oo kale jaamacadda mar walba iyaga waa xiriiri kartaan email toosa jaamacadaha laga xiriiraa Jefflinka waxyaabay kaga duwan yihiin email toosa u dirdiri kartaa iyaga Jefflinka ilaa lagu qaato emailooda inaad sugtid ma ahane iyaga email toos inta badan systemkooda uma diri kartid laakiin jaamacadu email toos ay leeyihiin su'aalo toos ay weydiin kartaa waxyaabo kugu taagan baa kala hadli kartaa iyaga mar walba information ku siinayo because xafiisay bay leeyihiin soo say jaamacadaha waddankeena oo kale xafiisay leeyihiin waxa uu qaabilsan oo si wanaagsan waxa aan hadda siinaya mikrofoonka Galaxy qofka ay ugu qoran tahay A10 su'aashaada waxaan ka codsanayaa walaalaha inay iyaguna soo koobaan su'aalaha mid ama labo muhiim ku ah oo gubaya inay nala soo wadaagaan si aan fursad ugu helno in walaalaha kale iyaguna weydiiyaan su'aashaada Galaxy qofka ugu qoran tahay السلام عليكم أستاذ شري هذا وما صنتهاي wax su'aalo ma qabay qaabka wanaagsan ee u sharaxday aad kaga mahadcelinaya adiga iyo doctorka aad ma sitiin mahadsan tahay qof kale oo isna Galaxy ugu qoran tahay baa jira hadduu isna ma qabay السلام عليكم wa alaykum salaam السلام عليكم عبد السمد waa laga horeeyaa wax yar mudgal sorry dadka marka hore gacanta soo taagtay baan ka dhamaanaa adiguna fadlan gacantaada soo taago mucaad baan siinanaa fursad inuu isna su'aashiisa weydiiyo don't worry qof kasta su'aashiisa waa uga jawaabanaa haddii ilaahay idmo kaliya waxaan rabnaa inaan sidaa safkaa ku socono السلام عليكم دمان ما سنتين أستاذ يوسف شري iyo maxaa tiktorka ma sinhin waxa weydii lahay ilaa saddex su'aal oo ka kaaban su'aash koowaad oo su'aal ahaan markaan programkan aan xareystay waxaan ka tagay su'aal halka ka tagay waxaan aad meel oo wadan kale ah marka interviewga wadanka kale sartiis muku gali kara su'aash labaadna waxa waa su'aal saddex jaamacad xareystay waxa helay jaamacad kale oo saddexda aan ahayn aqbalaad ka helay marka muku dari karaa saddex mid kamid ah jaamacadaha cusub aan helay su'aasha oo kale aan ku diraa waxa waa barnaamijkan wuxuu xirmaa November kooda xirmaa apply oo ka baxaa meel kale miyaa laga apply kareynaa mise website kale thank you maad baa mahadsan tahay su'aasha safaaradda la xiriirta jawaabta saxda waxa ka bixin karaya dabcan qoliyaha safaaradda oo anagu wixii website-ka iyo la xiriir process-kaas baan jawaab ka bixin karnaa laakiin kole inta ogahay dadku waxa ay ku galaan interview-yada wadankooda oo wadamo dibadda dadku galay ma arag waqtigii COVID-19 case-ku ka duwanaa oo maadaama COVID-19 uu jiray dadku online bay ku galayeen laakiin maadaama scholarship-kan loogu talagalay wadankaas specifically waxa ay ku qaadaan xarumaha wadankaas available-ka Soomaaliya Muqdisho Hargeysa baa marka fursadan qofka hela interview inuu safro wax weyn ma aha waxaan oran lahaa doorta magaalooyinka hana la safro su'aasha labaad ee la xiriirta su'aasha labaad waan bilaabo maleynayaa su'aasha labaad maxay note ma qoran afan su'aasha labaad waxay ahayd jaamacadaha jaamacad xareystay saddex jaamacadood oo kala duwan marka kale waxaa helay jaamacad kale oo afar aan website-ka aan ku dirin markii la xiriiray muku dari kala maxaa la yiraahdaa an condition markaa ka hel muku dari kala si wanaagsan walaalo si rasmi ah uma qorno website-yada xogta noocaasa laakiin case noocaasa oo dhacay baan arkay qofkii wuxuu la xiriiray higher commission-kii ama safaaradda uu la xiriiray iyagana u bedelay marka fursad waxaa jirta kol interview-ga marka laga qaaday qof interview-ga u soo gudbo inuu samayn karo reshuffle oo uu sida order-ka ay yihiin oo kale uu jaamacadaha kala bedeli karayo marka qofku haddii uu dood macquula la yimaado oo uuna doodiis waqti hore soo gudbiyo fursadaas way jirtaa laakiin waxaan 100% hubo maaha laakiin waxaan arkay ilaa laba qof meelahaas oo laga aqbalay jaamacada laakiin very early bay gudbisteen codsigooda xasan
arrintaa jaamacadaha saddexda hore gudbisay maaha jaamacad kale haddaad admission ka heshid sida Yusuf sheegay weeyo horta wax official meel ku qoran ma ahan laakiin experience-gayga baan anigu wadaagayaa waan la kulmay aniga laftirkaygu dad interview horta marka lagaa qaaday haddaad u gudubto interviewga su'aasha ugu dambaysa interviewga la weydiinaya waxayba noqon doontaa saan ku ogaa haddaan wax ka bedelin jaamacadaha wax ma ka bedelaysa marka su'aashaas markay ku weydiiyaan jaaniskaas waa jaaniska ugu dambeeyaan u malaynaya qofku haysto markaasoo kaleeto inuu gudbisto iyo waqti ka horeyso hadduu jaanis helo laakiin hadda waqti ka horeyso jaanis ku helaya baanu hadda ima muuqato waayo portalkooda message lagama diri karo marka waxaan kugula talin lahaa anu jaamacadahaaga waxaaga iska apply garayso wixii admission ka heshid iyo kuwaagii hore horta xoogga saar in admission ka heshid haddaa iyaga ka weydo jaamacado kale admission ka heshay ama jaamacadaha kale haddeer aad danaynaysid interviewga markaad u gudubto aad xiriir la yeelateed oo ay kula hadlaan markaas insha allahu tacaala gudbi waan ku oran lahaa aad baa u mahadsan tahay maxamuud baan siinanaa maxamuud cabdi qofka ay ugu qoran tahay waxaan ka codsanayaa walaalaha inay su'aal ku soo koobaan la'aana dad badan baa arkaa gacanta u taaganta waxaan doonaynaa inaan su'aalahooda dhan uga wada jawaabno marka soo kooba maxamuud soo dhowow asalaamu calaykum aad baa u mahadsantihiin tiimka runtii ustaad yuusuf aad baan ugu mahadcelinayaa markaan barnaamijkan ablegelinayay barnaamijyaad youtube soo gelisay baan aad u raacay runtii detail lahaa markaan kaaga mahadcelinaynaa su-aasheeda haddaan u gudbo su-aalahan qayb baa laga jawaabay marka kuwa ku noqon maayo dawaan helay jawaabtoodii marka waxaan rabaa in insha allah kuwa aan la qabo su-aasha koowaad waxa weeye ustaadii jaamacaduhu inta badan English requirements baa jira oo la iska rabo runtii oo dofo horta haddii IELTS laga hor qaaday ka wada laga hor qaaday jifininka jaamacaduhu inta badan waxay u baahan yihiin TOEFL ama IELTS ama English Cambridge waxyaalo noocaas marka horta ma jiraan jaamacada aqbala without Englishkaas yani la isku xiraayo midda kale haddii is jirin waxaan filayaa jaanis oo heli karnaa aan ku diyaarinay qofka waddanka kale jooga yani jaaniska ugu dhow heli karo ku diyaarin karo waa halkee weeyaan aad baa u mahadsantihiin maxamuud aad baa u mahadsan tahay sida waqtiga u bayqaamisayna waa kaaga mahadcelinayaa su-aasha lagu soo laalaabataa runtiina waa hawl taagan anigu bishii May baan waxaan sameeyay koorse yar oo IELTS kadib markii baahi badan dad badan iga soo codsadeen inaan koorse ka design gareeyo marka preparation kaliya ahayd koorse hal bil soconaysa oo preparation oo qofkii doonaya markaa inuu imtixaanka galo aan ugu talagalay inaan ku fahansiiyo qaybaha IELTS uu ka kooban yahay iyo sida uu imtixaanka u yimaado techniques iyo strategies caawin doona qofku maalinka imtixaanka u fariisto koorsada waa hayaa haddii u baahan tahay si gaara ila soo xiriir midda kale waxa weeye IELTS waa loo safrayaa oo qofku waxa uu ku qasban yahay inuu Kenya ama Ethiopia imtixaanka ka galo laakiin sida hadda ay ku bilaabay sheekada waxay ku xirnaanaysaa marka la jaamacadaha ay requirements-kooda jaamacadaha qoratay kulliyadaha qoratay maxay rabaan laana website-kooda si cad ugu sheegaan waxa ay doonayaan imtixaamada ay aqbalaan marka kadib imtixaanadaas baad isku daysaa inaad keentid haddii aadan haysan waxaad email markaas u diri kartaa coordinatorka facultygaas aad dalbatay waxaadna weydiin kartaa inay aqbalaan Duolingo inay aqbalaan shahaado qof English wax ku soo bartay inuu bilaabi karayo marka mar kale waxa weeye waa ardayga iyo siduu ula gorgortamo jaamacadda laakiin waxaan kuu sheegayaa inta badan jaamacadaha majority-gu waxa ay doonayaan imtixaan standard oo caalami ah waxaan ku dhiirigeliyaa qofku suu waqti ugu safe garoobo badan uusan daqiiqadaha u dambeeya u ordin inuu imtixaamada goor hore diyaariyo iskuna dayo inuu shahaadooyinka intuu galo u diro jaamacadaha waa tahay Miss Aisha ها والله ما سنتهين وإذن سلامي حسين يوسف بعد السلام وحاروا إنا يدوم دي لو سؤاله سؤال كواد وحيد تهاي وحنا هاقف جامعة دمي 2021 هادنا هي سنين work experience لينكي ساروا إنا وحيد نكو فيديو وحنا شقان سو شقينين لكن لسه شقي ورلو organization
organizations wax caddeyn ah warqadda inaan ka keensado qasamiya misma looma baahno su-aasha labaad waxay tahay hadda waxaa jira weli jifinka ma xiriirin laakiin waxaa xiriir jaamacadaha hal jaamacada hadda isoo aqbashay laakiin conditiona waxay i weydiisay qofku inuu haysto TOEFL oo ingiriish ee shahaado ay i weydiisay laakiin ana ma haysto jaamacaddeena waxay bixisaa ingiriish lahaya IML oo jaamacadda simad waaye shahaadadaas haystaa ingiriish maadaama jaamacaddeena ay tahay jaamacad ingiriish ugu bixisay maxaa iyadana dhankaas aan ka sameynayaa shahaado TOEFL sidee mise shahaadadan ingiriiska aan haystaan aan tusaya oo qaabilaysaa waana mahadsantihiin Ustaad Xasan waa mahadsanta Caaisha su-aasha haddaan dedejiyo su-aasha koowaad experience-iga institutionkii aan la soo shaqeeyay reference ma ka soo qaadan karaa dabcan haabay noqonaysaa jefininka waxaa ku ablegarinaysid bay ku xiran tahay reference-igu mararka qaarkood institutionkaasaan la shaqaynayay uga soo qaadatay khasab maaha laakiin essayadaada waxaa qortay waa institutionkaasaan la shaqeeyay waxaanaan sameeyey then that's the reference marka institutionadaas aad la shaqaysay haddii aad essaygaaga iyo applicationka hadda aad gudbinaysid ayaga ku gudbinaysid inaad la shaqaysay inaad reference ka heshid waa u baahan tahay su-aasha labaad highlightkaas aad baa loogu noqnoqday iyo language English testigaas waxa la testigaraynayo qofkaani ma awoodaa inuu jaamacad ingiriiska oo ah waddanka koowaad ee af ingiriiska lagaga hadlo wax ku barto waddanada wuxuu ka mid yahay luqadda koowaad ay tahay af englishka uu ka mid yahay ingiriiska markay imtixaanay aqoonsan yihiinay rabaan imtixaanaadkay aqoonsan yihiinna kuwa ugu caansan waa highlightka TOEFL-ka waxa iyo noocyo badan baa jira marka sida Yusuf haddeer u sheegay weeye haddii aad awoodid oo waqtiga haysid imtixaanaadka la aqoonsan yahay ee waaweyn time waa haysataan haddeer sameeya haddii aadan awoodin optionada kuu furan eeg jaamacado way jiraan imtixaano yarar oo kale iska aqbala kuwa hadday doonaan ingiriiska kaa dhaafaya laakiin informationkaas waxa anagu haddeer aan meel ku ognahay maaha ani jaamacaddu highlight baan galay highlight baan ku imi Yusufna saasoo haba umalnay jaamacadaha inta badanna 70% baan dhaho imtixaanaadka la aqoonsan yahay bay qaataan marka haddii aad jaamacadadaadu ay kaa daynayso aad la xiriirtid waa option furan haddii ay laakiin horta imtixaan Soomaali lagu qaado oo aqoonsan yihiin Soomaali kaliya ma ahana dee iyagu imtixaanaadkan ay internationalka aqoonsan waa imtixaanada inta badan iyagu pack up ku sameeyaan oo monitor gareeyaan oo iyaga safaaradahooda iyo wadannada ku yaala la shaqeeyaan marka saasay u qaadaan Yusuf mute baa tahay sorry xasan doctor xasan aad baa u mahadsan tahay waqti 10 daqiiqo haray marka waxaan ka codsanayaa dadka hareysaan dhammaantood ugu wada helno fursad inaan israac raacino ayna soo koobaan maxaa Cabdullaahi baan soo marayaa kadibna Cabdiweli baan ku xijinayaa maxaa Cabdullaahi soo dhawow hal su'aal maxaa Cabdullaahi malaha nama maqlo Cabdiweli Maxamuud يستاذ soo هذا ما سنتين دان سوكو يعني واحد سؤال ما قبل قبلي فرتونا اشياء قبتان قبي marka hore ugu jawaabteen aadani u bogaadinaya awalkan oo sameeyay awalkan awal jalaah ka dhigo halkii mid qori u taagan waxa weey 2018 qofkii dhamay yani baaji master hadartan haysto oo bila experience ah sida qaaday macna inuu ku apply garay meesha sadiisha shire thank you walaalow work experience waa qodob must ah qofku waa inuu haysto 2800 saacadood haddii uusan haysanna waa requirementskii mid ka mid oo asaasiga ka maqan marka wax badan oo ku banaan malaha waxay noqonaysaa inaad soo shaqaysid soo dadaashid waxyaabo badan isku soo deedid kadibna aad xareysid
cabdikariim baan fursad siinayaa isagana kadibna doctor Aamina. cabdikariim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدوى ما تنتهي دكتور حسن إيو أستاذ يوسف نقطة أنا جلستين سؤالي بس كسو كوبيا مركور كلاسيفيكيشن يرجع لها أنا في ريفرنسز قلنا البورتال كمركور أنا صدق تري موضوعية أنا يلا بقى كلاسيفيكيشن كثير رجع لها هنا نسيسو midda kale dhanka jaamacadaha problema naga haysta ardayda Soomaaliya wax ku baratay in jaamacadihii application-kooda aan gudbino oo inta badan jaamacadihii aan la xiriiray waxay qaarkood macna ma aqoonsaneen digriigaaga qaarkood waxay leeyihiin digriigaaga wuxuu u dhigmaa diploma dhankeena ah maxaan ku radaa problemka alterski wixii asna sii dhimay ardayda ay kasii hadleen teamkii iga horreeyay su'aalaha weydiisay marka waxaan jeclaan lahaa in experience-giina bal process-kii aan u marteen jaamacadaha haddii ay jiraan jaamacadaha is leedihiin inta badan dadka Soomaaliya wax ku soo bartay way u yar jilicsan yihiin in maxaan ku radaa bal nagala talisaan jaamacadahaasi kuwaas bal eega ay dhahdaan maxaan ku rahaa iyo dadkii hore u apply gareeyay in ay yihiin dad Soomaaliya degree kusoo sameeyay mise waxa inta badan dadka waxay moodaan in dadka dibadaha kusoo bartay bachelorka ama master kusoo sameeyay ay yihiin dadka hela jifininka mataqaana scholarshipskooda marka halkaas su'aal qabay experience-giina si guud waa iska su'aal open ended ah waxay idin la tahay. Thank you very much Hassan. Ma ku daraysaa? waa maasan tahay su'aasha walaal ta koowaad oo reference-ga ah saddex mise labo waxaan u maleynayaa inay laba yihiin haddaan khaldanayn reference-ga adiga dadka ka soo qoranaya hadday jeffrinku u baahato qofkaas iyagaa la xiriiraya laakiin waxay caadiyan adiga ka soo qoranaya waa ku maqlayaa niyo dadkeena qaybtood muudka in la gala ma garanayaan. Okay marka reference-yada adiga ka soo qoranaya qofka reference-ga ku ah kadibna waa upload gareynaysaa jeffrinku mararka qaarkood inay la xiriiraan baa laga yaabaa hadday la xiriiraan markaas qofku waa inuu og yahay in lala soo xiriirayo kadibna adiga kula socodsiinaya kadibna uu ka jawaabayo arrinta jaamacadaha iyo Soomaaliya inta hadda meeting ku jirnay waxaan u maleynayaa hadaan khaldanayn dhowr qof baa ka dhawaajiyay inay jaamacado already admission macnaha offerro conditional ay ka heleen qof waaba xasuustaa waxaan moodayay inuu yiri Soomaaliya baan jaamacadda ka dhameeyay marka horta kuma xirna anu dadkaan aqaano dad Soomaaliya jaamacadda ku soo dhameeyay dad dibadda Soomaaliya jaamacadda ku soo dhameeyay way isugu dhex jiraan anu jaamacadda adoo hadda aad dhigatay ma garan karo specifically laakiin Soomaaliya jaamacado badan baa ku yaala marka Ingiriiska meel ay kaga qoran tahay jaamacadaha Soomaaliya ma aqbalayno hadda ani ma ku sheegi karo laakiin waa relative oo qof kasta individual kasta application-kiisu kale waa ka duwan yahay marka waa ka xumaayna experience-ga dareemaysid bal isla groupka dhalinta hadda ka hadlaysay laftirkooda idinku intaa xiriirtaan hadda iyagu Soomaaliya wax ka barteen procedure-ka u mareen weydii haddii kaleeto anaga laftirkeyga inaan contactiga ku siino oo bal qaabka wax yihiin aan eegno bay noqonaysaa laakiin in general su'aasha haddaan soo koobo adigay kugu xiran tahay waddanka ka timi ama jaamacad Soomaaliya ah jaamacaduhu inay ku aqbalaan kuma xirno. waa mahadsantahay waa taa waqtigu naga sii dhacaya awgeed Dr. Aamina iyo Axmed Xuseen walaalayaal soo kooba idin kara dabcan ma ka wada gaarayno laakiin waxaan isku daynaa inta ka gaari karayna kan soo kooba Dr. Aamina. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلو من مقلاه واكم مقلنا ولا السوداء وإن سلام يا دكتور حسن إيو يوسف سؤاشي waxa weeye jaamacadaha marka eegtid beejka qaar baa partner ah qaarna waa partner ma aha soo partner macnaheedu waxa weeye jifining xiriir lama leh oo ma apply gareyn kartid mise waxa waaye jaamacadaas iyo jifining waxay iskala shaqeeyaan oo apply gareyn kartaa.
أول سنة أملين جري لكن واحد أركي أودي قف هلا سنة كا جامعة محلها أمبارتنا جبن سو أشياء بس كده وايد ما سنتين. اوكي واسرع راعينا احمد حسين يا مبارك كي مركز جوجا كورمر سو كوبا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan filayaa احمد haye waxyar مبارك. أستاذ waxyar ما سنتين dhammaantiin waqtiga noo horteen ustaadiinta iyo khiyaarta kala salaamaya aniga su'aal yar noo watay recommendation noo watay su'aasha noo soo hormar saaxiibo يعني recommendation ku wuxuu ahaa work experience ga dadka aad uga codeen laakiin meel ta akhrinayay work experience ga waxa soo galay xataa yani self employment freelance dad samaystay yani all of these ku ku soo galay yani main issue ma marka waa la wadaagay taas su'aashaada soo koob fadlan. okay su'aashaada waxa weeye يعني IELTS dhibaato badan naga haysata dhalinyarta waddanka wax ka baranaysa aan hadii tahay boqolkiiba 90 maadaama la yiri jaamacadaha Ingiriiska IELTS qofka wadan waa adag inay aqbalaan marka su'aalaha hadda inaan IELTS ku soo diyaariyo Ethiopia oo kale yani deegaanada Soomaalida ma ugu diyaarin karaa ana filayaa inay su'aashaas inay ka baxso topic laakiin si fiican baa ku fahnay aad baa u mahadsan tahay Axmedow. Mubaarak haye. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدكتور كي يوسف عاد من سلامية أنا وقتك صدورية. سؤال له أو سؤالها عن قبل دون لقى جواب لكن ما حرب هل سؤاله كمان أنا يوديو أنا بو وان دري application كي حاليا يرن ولا ويسو جواب يا جيميل اللي يسوى دري مركي برنامج كاسو حرمه مركا وحن أركا سوشيال ميديا بيجي UK كقرنتين سوماليا in dad ay ku guuleysteen already 2022 2023 ay ku qoran tahay oo programka already lagu guuleystay dhowr qof baan arkay marka programkan waxa ku qoran markaad sii raacdo in programka markii la xiro kadib lagu soo jawaabiyo February marka bal hawsha ka waran idinka raaliya si wanaagsan su'aalaha dhan baan israacinana kadibna waxaan ku soo gabagabeynaa jawaabaha. Maxamed Amiin. Okay, السلام عليكم. سؤاشن wato waxa weeyaan jifininkan xareeyay marka waxa jirtay qaybta ECG-ga yaan qaybo ka soo qaatay waan isku dardaray kadib baa lagu yiri ECG-ga qortay Bulgarian baa lagu jeegaranay marka waan cancel gareeyay muxuu ahaa jifininkii aw withdrawing baan yiri dib baan u bilaabay Gmail-kii baan bedelay wixii baan bedelay marka miyay soo raaci karaan oo hadhow inay ga daba yimaadaan magacayga soo qabtaan miyay jirtaa ta kale waxaa jirtay walaal bas hal su'aal baan qaadaynaa waxaan rabnaa inaan walaalaha kala siino maxaad waxaan codsan lahaa odayguna xagadaal ka soo galay in loo ogolaaday hal su'aal waxaan aadan iyo Cabdicasiis aadan hadduu hadleen maala soo daa ما سنتين ولا دكتور حسن أو يوسف ما سنتين وحنا ويدين ما كليا قف قدو ماستر رئيسته سيستم كذا كوشة تسامين يكون كنيسة هادو تمر ما سنتين. Thank you. عبد الرشيد. walaal waa maasantiin waa su'aalii waa gaban yihiin waana laga yaabaa in horey looga soo jawaabay maadaama aan gadaal kasoo galay mid waxaa waaye jaamacaddan markii oo la leeyahay unconditional offer iyo wayna ka haystaan iyo unconditional meesha ay leeyihiin aniga wax jaamacadan apply gareey ma jiro formkii baan dhamaystirayaa una caawi ama beri inaan diraan rabay marka meeshaan aan xoogaa ka yara shakiyay marka wax saameyn ama igu yeelanaysaa aad baa u mahadsan tahay haye maxaad abshir السلام عليكم aadan haye soo daa يوسف مرلاdan soo laabtay ma sintiin inkastoo aadan soo laaban walaalo waa waqtigii baa dhacay Saadiyo iyo Cabdisamed baan ku soo gabagabeynaa Saadiyo mana maqashay aan ku hormar haya Cabdisamed bismillaahir rahmaanir rahiim aadan kaaga mahad celinaa Yuusuf dhowr jeer waa hore waan rabay inaan kula soo xiriiro waxay ugu soo laabanaysaa aniga casharadadan waa dhageystay formkii wixii dhan waa buuxiyay waa diray
marka processka xigo ilaa iyo haddii wax yar nooga sheegi karto aad ay u fiicnaan lahayd. midda labaadna waxaa tiri research ma la sameynayo jaamacadaha markii xagga la aado ma maadooyin keliya lasoo cover gareynaya lasoo qaadanaya imtixaan lasoo gelaya lasoo laabanaya mise researchna waa jiraa maadaama aad tiri research ma jiro marka arrintaas ayadana waxaan rabay inaad faahfaahin yar naga siiso. thank you waa tahay su'aalaha jawaabahooda si kooban u durmaraya fiiri intaad su'aalaha jawaabahooda u gudbin hal su'aal okay hal su'aal haye soo daa hortu raalliga ahaada anigu waxaan kala soo hadlayaa Philippines iyo su'aasha aan rabay inaan ku weydiiyo waxa weeye hortu master baan ka qaatay wadanka Philippines master kalena waa wada iyadoo saas haddana chiefinin scholarship waan abaalgareeyay su'aasha aan rabo hadda ka hor baan waxaan ku guuleystay scholarship kale oo EU-da bixinaysay ma isleedahay scholarship-kaas uu iga saameyn karaa? thank you waxaan ku bilaabayaa su'aalaha masterka la xiriira master qofku hadduu wato waa caadi laakiin waa inaa sharaxaad bixisid anuu master hore Turkiga baan watay master UK-na waa xareeyay laakiin waan sharaxay baahida jirta marka wax dhiba ma arag xaggaas tan kale oo scholarship-yada kale ma filayo inay xiriir ka dhaxeeyo oo UK EU kuma jirto waxa waa iska logic su'aasha partner university-ga la xiriira waxa weeye aan oran lahaa labadaba way ku soo baxaan ardayda oo haddii uu jaamacad partner xareeyo iyo haddii uusan partner xareyn farqi weyn oo u dhaxeeya ma laha inta ogaalkayga labadaba waad ka heli kartaa aqbalaad Chevening labadaba way fangareeyaan su'aasha IELTS-ka xoog baan uga jawaabnay waxa weeye dalka dibadiisa lagu galaa Kenya iyo Ethiopia website-ka IELTS ama Addis ama Nairobi haddaa fiirisid isaga wuxuu ku tusayaa bilaha soo socda oo dhan slots-ka bannaan waqtiyada qiimaha wax oo dhan marka please dadkeena waxaa mararka qaybtood moodaysaa inay aanu ka caajisnay inaan baaritaan sameyno baaritaanada hala sameeyo haddaa guulgaraysan xog badan baa helaysaan iyo iska hor istaagin xog la'aantu in aadan wax xarayn su'aasha waxaa xigta aqbalaadda walalo dadka sanadkan xareey lama aqbalin dadka UK Soomaaliya ay soo dhigayso waa dad already UK yimi oo sanadkii hore soo xareeyay baa hadda loo hambalyeynayaa dad bishan intuu ilaa August uu furan yahay la aqbalay ma jirto barnaamijkan hal sano u qaataa June way marka ay dadku dabaaldegayaan Augustna fiisaha helayaan marka sanadka soo socda lama gaarin weli taa waa taas website-ka haddii aa akoon cusub ka furatid waa caadi wax dhiba ma laha aniguba kii hore uu iga xumaaday mid cusub baan sifir ka soo bilaabay wax dhiba kalama kulmin su'aasha u dambaysa oo walaalkuna weydiinayayna iyadana waxay ahayd February waxaan leeyahay November labadeeda maxaa ka dambeeya November labadeeda waxa ka dambeeya inaad documentieskaaga ka dhiman aad buuxisid referenceska gudbisid March aad interview aad sugtid inaad u soo gudubtid iyo in kale marka interviewgaas way meesha dad badan ay ku harayaan Yusuf su'aashaan ka dhex galo si khaldan dhameeye kadib baan ku siinayaa microphone-ka marka February referenceska iyo documentska ka dhiman baa gudbinaysaa oo website-ka hadda aad akoonka ku leedahay baad ka gudbinaysaa meel cusub ma aadaysid Marchna ardadii xaraysay oo idil baa ama waxay helayaan inay u soo gudbeen stage-ka interview-ga ama ma aan la qaadano stage uma soo gudbin xaggaas ku harayaan marka intaasaa xigta wixii kaloona xogaha website-ka timeline-ka cad step by step baad ka heli karaysaan Xasan السلام عليكم ها محمود معلن وما سنتهاي waxaan rabaa inaan ku weydiiyo jaamacadaha dhowr jaamacad isku day inaan apply gareeyo jaamacad kasta markaan apply gareeyo maagana waxay ugu dhacayso inay tusaale kale shuruudo ay ugu xirayaan oo kale leeyihiin personal statement oo kale marka personal statement-gaas oo kale maxay noqon kartaa sidaad inay jaabtaan rabaa thank you Xasan personal statement okay inta badan adaa su'aalahan ka jawaabay mid waxaa jirta aan meesha ka dhex qabtay oo qof inuu ina weydiiyaan u malaynaya yiri research looma baahna master degree-ga marka research waa loo baahan yahay oo dissertation ama thesis baa samaynaysaa ama Soomaalida book been u naqaanaa inta badan jaamacadaha waddankan waa 3 semesterka u dambeeya oo 3 bilood u dambaysa sanadkaaga
research baad samaynaysaa thesiska ama dissertationka adu magaca doontid ugu yeer laakiin basically waa research project adigu aad fulinaysid jaamacadaha qaarkood laga yaabee in aysan heer research gaarsiisanayn laakiin mar walba assessmentiga u dambaysa waa inaan wuxuun qortid oo ama ha koobnaato ama ha badnaato arrinta oo personal statementigu dee macnaheedu waxa weeye kolba se u dhigaan bay ku xiran tahay laakiin usually personal statementigu waa inaad dee ka hadashid qofkaa tahay iyo saa wax u baranaysid iyo balaankaaga iyo kooraska saa uga bixi kartid iyo waxyaabahaas laakiin personal statement keliya qofka ma weydiiyaane bal sharaxaadda la socota akhri exactly wixii kaa rabaan saasaan taasna oran lahaa su-aashii ugu horreysay partnerka aamina ina weydiisay su-aasha iyadana waxaan oran lahaa si Yusuf sheegay weeye jaamacaduhu inta badan Cheveninka way la shaqeeyaan laakiin waxaan idinkula talin lahaa jaamacadaha axaraynaysa inaad contact la yeelataan email la u dirtaan weydiisaan su-aalaha aad qabtaan horena saan u sheegay jaamacaduhu way kasoo jawaabaan emailada inta badan aan ogahay hadday asbuuc kusoo jawaabaan asbuuca ku xiga kusoo jawaabeen marka wixii aad su-aal qabtid Chevenin ma la shaqaysaa waxaan ma samaysaa inaad inta badan iyaga information ka weydiisaan highlight-kan xataa hadda aadka uga waa keenaysaa in iyaga weydiisaan dhahdaan highlight-ka ma naga dhaafi kartaan su-aalahaas oo dhan inaad weydiisaan insha allahu tacaala aad baa u mahadsan tahay waxaa chatka aad leega soo weydiinayaa sambalka labadaba inta aan muuqaalkan soo gabagabayn baan soo dhigi doonaa sidoo kale waxa aan linkiskiisa isagana dhigay YouTube channelkayga oo runtii xooga badan aan oo jawaab su'aalihiina qaybtooda aan already xagga uga jawaabay waxaan ku dhiirigelinayaa dhalinyarada in ay baaritaanada sameeyaan website-yada akhriya kaliya YouTube-ka iyo kaliya boqolaal YouTube baa jira oo inta resourceska yani available-ka maanta ciidaasi ka badan yihiin marka isku day inaad muuqaalada dhammaysataan oo daawataan research aad samaysaan website-ka Chevenin iyo dad kaloo blogs ka qoro aad akhrisaan contactskayga waxaa ka helaysaan YouTube-kayga wixii reasonable ah waan ka jawaabayaa oo su'aalaha awoodayda waxa weeye waan ka xumahay in dadka qaybtooda aysan waqti u helin inay ka jawaabaan laakiin timekii aan ugu talagalnay baa taagan marka hanala ka raalli ahaado inta kale ee hartayna waxaan rajeynayaa insha allah in aad naga soo weydiisaan baraheena bulshada ustaadka xasan waxaan isna ka codsanayaa haddii uu awoodo facebookiisa oo kale inuu soo dhigo si su'aalaha haddii ay jiraan walaaluhu inay soo weydiyaan anigana instagram facebook kulli Yusuf Shuraac ugu qoran easy baad u heli karaysaan marka inta aanan xirin baa waxaan doonayaa inaan labada dokumentiga haddaaytana share gareeyay aan mar kale ku celiyo laakiin muhiimaddu waxa weeye inaad kale structure-kooda iyo sheekadooda aad dhegaysatid iyo waddada mareen adiguna aad qoratid wax kuu gaara oo waxay isticmaalaan software-ro plagiarism-ka ama koobiga qabanaya marka haddii aad koobi bas tiraahdid qof kale waxa uu qoray way kula degaysaa runtii marka isku day kaliya inaa structure-ku qofku qoray iyo paragrafyada u kala qaybiyey iyo tusaalahaas uu isticmaalay erayadu kusoo gabagabeeyey essayga kuwa uu ku furfuray qish noocaasa sameeya guidelineska ustaadka doctor xasan u diyaariyeyna isaguna waa road map kale oo idinka caawinaya inaad waddo saxa u martaan shaqo badan qabta scholarshipkan haddii aa weydaan dunida dhammaadkeeda ma aha boqolaal scholarship baa jira maalin kasta waan soo dhigaa YouTube-ka sanadkan haddaada helin sidoo kale sanado badan baa jira sanadkan waxaa ka mid a dadka yimaadeen inaan saaxiiba nahay oo markii afraad buu helayaa 3 jeer horu waayey markii afraad buu ku guulaystay marka ku tuur howlaha kale iska wado haddii kuu soo baxo waa alxamdulilah haddii kalena waxa weeye other day waaye maalin kalaad kusoo tuuraysa scholarshipyo kaloo badan baa jiro furan mar kalaan iyagana zoom ka samayn doonaa insha allah bishaan soo socota November hubi inaa marka baraha bulshada aad igala socoto khaasatan YouTube-ka waan soo dhigo wixii kale oo su'aalana saa inii sheeg baraha bulshada noogu soo hagaajiya waqtigiina wuu naga dhacay 25 baa la joogaa waxaan mar kale u mahad celinayaa Dr. Xasan oo waqtigiisa noo hibeeyey si uu uga jawaabo su'aalo badan iyo soo qaybgalayaasha oo daafaha dunida kaga soo biiray bartaan Zoom-ka insha Allah waxaan isku dayayaa inaan Zoom calls badan sameeyo bil kasta mid ama laba sameeyo aan isku dayo inaan helo
dad China scholarship ka helay dad Erasmus helay Europe jooga dad North America tagay marka waxaan isku daynaa inaan community abuurno ka faa'iidaysto fursadahaas dunida yaala laakiin waxa iyadana daruuri ah idinkuna inaad isku xirnaataan Telegram group baan sameynayaa soo dhigi doonaa inaad idinkuna baaritaan samaysaan taasaan kusoo gabagabaynayaa oo aad su'aalaha qaybtooda la i weydiiyo runtii waa very simple yani uma u baahna shaqo badan intuu aniga iisoo qorayo Google buu ku qori karayaa ma garan marka waqtiga ka faa'iidaysta iyo fursadaha meelaha yaal waxaan rajeynayaa insha Allah PDF-kii dabcan 5 jeer baan soo share gareeyay dadka aan weli helin waxaan rajeynayaa in ay walaalaha kale ka helaan haddii aadan ku arag chat-kana YouTube-ka baad fiidiyoyada hoostooda markasta baa linkskan soo dhigaa marka xaggaasna waa kala soo degi kartaa lacana dad baa gadaal kaga soo biiray laga yaabaa inaysan arag PDF-yadaan soo dhignay intaasaan kusoo gabagabaynayaa mar kale waa mahadsantihiin aad baa u mahadsantihiin Ustaad Xasan iyo dhammaan dhegeystayaashaba asalaamu calaykum waxa weeye habeen wanaagsan jumco mubaarak mar kale